وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأعظم نبي الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. waxaan halkan jeclahay biidni illaahi albaari inaan wax yar aan taabto nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa waa cidamu qadrihi, qadarkiisa iyo sharafkiisa, weynankiisa xabiibka inaan in yar ka taabtaan rajaynaya. arrinkaas waa arrin aada u weyn ah, aadna u culus. ninka halkaa gelaya wuxuu ka dhigan yahay nin doonaya inuu bad moolkeedu aada u dheer yahay, nin doonaya inuu dabaasho. aniga lahaantaydana waxaaban ka dhignahay nin dabaashina aan garanaynin, baddaa moolkeedu aadka u fog yahayna inuu dabaasho doonaya, islamarkaana baddii xeebteediiba weli ayan u muuqanin inuu xeebta istaaga iska badaaye. maxaa yeele xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam qadarkiisa iyo sharafkiisa aad iyo aad aan la koobi karin yuu u sarreeyaa, oo ilaahay unbaa og una dhammeeyey, annagana nooga warbixiyey markuu yidhi si duuduub ah: wa innaka la calaa khuluqin cadiim. khuluq iyo dhaqan sare dushiis yaad nebiyow ahaata calayhi salaatu wasalaam. khuluqaas wax ka mid ah yaa ilaahay ka daahiriyey intuu saxaabadiisa dhex joogay calayhi salaatu wasalaam. nimanka maadixiinta yaa aada isugu howla in nebiga ay wax ka sheegaan, macnaha ay noo tilmaamaan qiimigiisa iyo darajadiisa. iyagana marka u dambaysa gidaar baa soo celiya, sidii uu yidhi imaam albuusiri raximahu llahu tacaala: famablagu lcilmi fiihi annahu bashar wa annahu khayru khalqi illaahi kullihimi. oo macnaheedu u ahaa, annaga cilmiga aan u leenahay xabiibka calayhi salaatu wasalaam yoolkiisa iyo xagga ugu fogba waa inuu bani aadam yahay. uunkiisa markaan eegno laba lugo dadka ku socda sidaa uu yahay oo kaleeto, khalqigiisa inuu xaggaa yahay unbaa cilmigeeda dhaafi layahay buu yidhi, iyo xagga dhaqankiisana inuu khalqiga u khayr badan yahay. ninka uunka u horeeya inuu yahay wa annahu khayru khalqi illaahi kullihimi, inuu uunka u horeeyo. intaa wax ka fog ma hayno. yacni waxa u muuqday waa niman waaweyn oo markay cilmigii fiirsheen, duruustii fiirsheen, qur-aankii xadiiskii fiirsheen, dhaqankii nebiga wixii laga qoray ay fiiriyeen, dhakafaar halkaa ay ka qaadeen, oo wax walba ay halkaa uga muuqdaan iyagii inuu bani aadamku nin weyn uu yahay, shakhsiya cadiima oo aan laga wada warbixin karin, yaa nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam. biidni illaahi albaari waxaan isku dayayaa inaan wax ka sheego waxyaabihii ay a'immada waaweyn ay ku soo guuriyeen kutubtooda. allah ii fududeeye. ilaahay boqorka ahaa oo abuuray nebigeenna wuu fadilay xabiibka, wuu fadilay khalqiga idilkoodiioo alla ka fadilay, isla markaa wuu karaameeyey, wuu sharfay duuna hayrihi min alambiyaa bikhasaa'is kathiira. ilaahay wuu karaameeyey nebigiisa marka laga reebo ambiyada kale iyo rususha alla uu soo diro, marka la reebo khasaa'is gaar ah iyo dhammaantood uga dheereeyey xabiibku ilaahay ku karaameeyey calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuu sheegay nebigiisa
intuusan abuurin oo caalamka uusan kusoo darin uusan caalamkan uusan imaan ka hor yuu alla ka warramay uu ka warbixiyey wuuna qurxiyey wuuna sharfay kadib markii uu soo galay adduunyadan uu soo galay ilaahay wuu qurxiyey wuxuu ku qurxiyey khasaa'istaas aan tilmaamay inay jiraan waxyaabaha nebiga lagu gaar yeelay oo fadliga aadka u weyn oo magaciisu ku wen yahay ah waxaa ka mid ah akhdu lcahdi lahu calaa jamiici alambiyaa khasaa'istaas iyo sharafka nebiga ilaahay uu muujinayo iyo inuu nin guud yahay uu khalqigiisa u tilmaamaya ilaahay ballantii adkayd oo uu ku qabtay ilaahay calaa jamiici alambiyaa waalmursaliin oo qur-aanku noo sheegay calayhim asalaam idilkood haddii wuxuu ahaa ballankaasuna haddii nebiga lasoo saaray calayhi salaatu wasalaam iyagoo nool rususha alla uu soo diray idilkood iyo ambiyadiiba in uu waajib ku noqonayo inay raacaan ay rumeeyaan ay u gargaaraan waajibu ku noqonaya iyagii ballantaa adagyuu ilaahay ku qabtay iyagii dabeedna wuxuu ummadihiina gaarsiiya saasna waa la amray oo maca ummadahoodii iyo alla ballantaa uu ku qabtay isagoo waddada ambiyadooda u marinaya haddii nebiga lasoo saaro nebi kastoo markaa nool oo uu soo gaaro in uu raaco asaga iyo ummaddiisuba inay raacaan rumeeyaan u gargaaraan garab istaagaan xabiibka calayhi salaatu wasalaam haddii arrinkaa ay samayn waayaanna way khilaafeen ilaahay amarkiisa ilaahay boqorka ahaa qur'aanka isagoo arrinkaa nooga warramaya wuxuu yidhi acuudu billahi min ashayطaani arajiim waid akhada allahu miihaaqa annabiyiin miithaaq waa ballan sideedaba ballan dhaaro lagu adkaynayo aada u adag miithaaqa ereygaas qur'aanka 2 jeer unbuu ku soo arooray baa layidhi halkan oo ambiyada xaggooda lagu qabtay iyo dhaqanka zawjaanka xaggaas markuu ilaahay ka hadlayey wa akhadna minkum miithaaqan haliidan oo ayada ahayd waid akhada allahu miithaaqa annabiyiina alle xilligaa xus markuu qabtay ballannada adag uu ku qabtay ambiyada lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum dabeedna idin yimaado markii kitaabka laydinla yimaado iyo xikmadda oo dabeedna uu idin yimaado rasuulkaasoo musadiqun limaa macakum waxaa adinka laydinla yimid oo aad haysaanoo kitaabka ah rumaysan latu'minunna bih waad rumaynaysaan ood rumaynaysaan baa ilaahay leeyahay walatansurunnahu u gargaaraysiin dhaar buu ilahay halka ku lamaaniyey dabeedna wuxuu yidhi qaala aqrartum ma qirteen wa akhadtum ma aqbasheen calaa daalikum isrii ballantaydaas arrinkaas aan idinkula ballamay ma qirteen oo ma aqbasheen ambiyadii qaaluu aqrarnaa waan aqbalnay waan sugnay dheheen qaala markaa wuxuu yidhi ilaahay boqorka ahaa fashhaduu waana macakum min ashaahidiin ilaahay boqorkaa waa sidaa odhanaya la jirkiina aniguna ana arrinkaa uga markhaati kacaya aayaddaas waxayna tusaysaa ilaahay qowlkiisa annebiyiin yaan ballantan ku qabta markuu odhanayo kelmadda nebiyiinta waxay wada gaaraysaa nebi kasta oo ilaahay uu nebinimo uu siiyey iyo rasuul kasta maxaa yeelay rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma aha marka nebi kasta ama rasuul ha noqdo ama rasuul yuusan noqonin nebinimadiisa ha ku ekaadee ballantaas way gaaraysaa waana lagu qabtay saas awgeed yaa sayidna cali iyo keyrkii saxaabada ka mid ay odhanayaan maa bacatha allahu nabiyan min alambiyaa min ladun nuux laga soo bilaabo ilaahay aan nebi ma soo saarin nuux laga soo bilaabo ilaa inta ka dambaysay ilaa akhada miithaaqahu miithaaqaasuu ilaahay ku qabtay layu'minunna bimuxammadin sala allahu calayhi wasalam inay nebi maxamed ay rumeeyaan una gargaaraan in kharaja wahum axyaa iyagoo nool haddii uu soo baxo nebi maxamed inay garab istaagaan iyagoo rumaysan una gargaaraan maca umamihim
arrinkaasi lagu qabtay rasuulka halka ku jira imaam subki rahimahullah ta'ala wuxuu leeyahay mufassiriinta waxay ku fasireen rasuulkaas waa sida loo badan yahay in yaro khilaafa ka jira leeyay huwa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wasallam ثم جاءكم رسول تايد اتلماميسو انو حبيبكeenii عليه الصلاه والسلام nabi kasto marka adduunyada soo maray wala amray waxa ayadu sheegtay yu maamur ku yahay arrinkaas waxa ku jira adeyn aan ka fahmayno nabiga taaliimka qadarkiisa aadka u sareeya waxa aan badan oo aan naga qarsoomeynin iyo halka ka muuqda oo ilaahay marka sharafkiisa halka uu ku muujiyay xabiibkiisa alayhi salatu wasalaam waxana ku jira halka oo kale hadii la qadaro zamanka uu imaanayo zamanka hadii nabi kasta uu joogo inuu nabiga uu raaco alayhi salatu wasalaam qaybta dambe oo tarxigta iyo noo ahaanaysa biidnillahi albaari assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ربيع موسم الأحبة والله وهو عيدنا المشارعي طوبى لمن صلى على نبينا بنية لله بتضرعي بشرى لمن صلى عليه دائما في كل وقت على تضوع